barasabka gobolka Hawd ayaa deeq kitaaba gaarsiiyay degmooyinka Balligubadle, Ballacabana, Sayla iyo Gumburaha iyo deegaanka Baargo ee gobolka Hawd. Deeqdan kitaabada ah ayaa ahay mid uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu deeqay ardayda barata Quraanka Kariimka isla markaasina uu soo wakiishay Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Soomaaliland. Barasabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shida ayaa deeqdaasi kitaabada u gaarsiiyay sidii loogu talagalay malcaamadaha iyo madrasadaha kala duwan ee ku yaala degmooyinka gobolka Hawd. Maamulka degmooyinka gobolka Hawd, culimaadudiinka iyo macallimiinta madrasadahaasi ku yaala gobolka Hawd ayaa ka mahadnaqay deeqdaasi kitaabada ah ee la soo gaarsiiyay. halkan waxaan mahad weyn u jeedinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u soo deeqay maanta ardayda yar ee Quraanka madrasada kutubta ee Ballacabana ah gobolka Hawd oo dhan. waxaan u mahadnaqaynaa haddaan nahay guud ahaan gobolka Hawd khaasatan degmada magarasa Ballacabana kutubtan uu noo soo diray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu sida wanaagsanna ugu soo gaarsiiyay gudoomiyaha gobolku ardayda kala duwan ee dhigata guud ahaan gobolka khaasatan ardayda degmada Ballacabana. waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad buu u mahadsan yahay sadaqa jaariya ayuu la baxay waxaanu leenahay jazakallahu khayra jazaa. ducaynayna oo aan mahad u celinayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. marka hore waxaan kala ugu tirayaa salaam madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu raaxantii ka bilaabay madaxweynimadiisa halkii loo baahnaa waa waxbarashada. mahad iskale ilaahay baa mahad iskale isku keenay halkan. marka labaad mahad waxa iskale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad waxbarashada xagga diiniga iyo xagga diintaba aad u taakulanaya. runtii waxa mar labaad maxay mahad mudan barasabka gobolka Yaasiin. ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad celinayna thumma gudoomiye Yaasiin barasabka jazakallahu khayrisa soo gaarsiiyay. ثم وحمد علينا مدحوينه قرنك جزاه الله خير وحمد علينا حكومه waxaan idin siinaa deeq kutuba oo idinka timi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu idin soo mariyay wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil. haddii ilaahay ka dhigo marnaba idinka gacan la'aan mayna arday madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu horumariyo tacliinta oo ay ugu horeyso diinta haddii ilaahay ka dhigo. marka marnaba idinka gacan la'aan mayno wixii deeqe kale ee kutubee timaada ana waa idin keeninaa. idinkana waxaanu idin xasuusinaynaa wax la barto waxa ugu qaalisan ilaahay iyo rasuulkiisu wax yiraahdaan barta waanu idinka warhaynaa. Maxamed Jiciir oo Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.